in ka badan qarniyo ka hor makhluuqaad baaxad waaweyn oo bini'aadan u eg oo la yidhaahdo Titanic ayaa dhulka ka soo muuqday waxaana bilaabeen inay dhibaato weyn geystaan. waxay quudan jireen bini'aadanka iyagoo burburiyey ilbaxnimadkoodii. burburkaas dartiis bini'aadanku waxay bilaabeen inay la kulmaan khasaare aad u weyn. tiradoodana waxay hoos ugu dhacaysay xawaaro sare. tani waxay ku qasabtay hogaamiyeyaasha adduunka inay midoobaan, laakiin xitaa markaas way ku guulaysan waayeen inay ka adkaadaan Titaniska. markii weerar kasta oo ay qaadaan uu noqday midaan waxba ka soo bixin, bini'aadankii badbaaday waxay bilaabeen inay isdifaacaan. waxay dhisteen derbiye waaweyn oo isku dhex wareegsan kuwaasoo aad uga dhaadheer Titaniska, iyagoo rajeynaya inay nabad helaan. mid ka mida magaalooyinka ku yaala Jabaan waxaa laga dhisay 2 derbi. qaybta bannaanka waxaa loo bixiyey degmada dibadda, halka tan gudahana loo bixiyey degmada gudaha. inkastoo dadka derbiga ku dhex jira ay ku guulaysteen inay dib u abuuraan ilbaxnimo cusub, haddana waxay had iyo jeer ka cabsan jireen maalinta ay Titaniska kusoo jabin doonaan derbiyadan. muuqaalka xiga waxaa lagu soo bandhigayaa geesiga sheekada, nin dhalinyaro ah oo geesiya oo la yidhaahdo Eren Yeager. wuxuu degan yahay degmada dibadda, wuxuuna rajaynayaa inuu maalinun derbiga dhaafo si uu adduunka u soo booqdo. inkastoo aanu jirin mid ka mida dadka deegaankaas oo weligiis derbiga ka baxay, Eren wax badan ayuu ka ogyahay adduunkan. wuxuu had iyo jeer saaxiibadiisa ugu dhow ee Armin iyo Mikasa uga sheekeeyaa dhirta cagaaran iyo badaha quruxda badan ee adduunka dibadda ah. maalin maalmaha ka mid ah, 3 saaxiib waxay ugu dambayntii go'aansadeen inay fuulaan derbiga xadka si ay dhinaca kale u eegaan. markay halkaas gaadheen waxay ka naxeen baaxadda weyn ee dhismaha. sida la filayey, Armin iyo Mikasa waxay bilaabeen inay dib uga fikiraan qorshaha maadaama ay rumaysnaayeen inay Titanisku ay weli dibadda joogaan. si kastaba ha ahaatee, Eren oo ku adkaysanaya baaritaanka ayaa saaxiibadiis ku qanciyey, isagoo sheegay in Titanisku ay u badan tahay inay mar hore dhinteen maadaama aysan helin hilib bini'aadam. inta ay saddexdoodu sheekaysanayaan ayaa waxa sikadiisa ugu yimid askarta ilaalada xadka. waxayna isku dayeen inay xidhaan, iyagoo ku eedaynaya inay xadka ku dhowaadeen inay ka baxaan. Eren oo aad u xanaaqsan ayaa bilaabay inuu la dagaalamo, isagoo aan dareensanin in lagu dili karo dembigaas. inta uu dagaalku socday waxaa yimid kabtanka ilaalada xadka, kabtan Suuda, wuxuuna amar ku bixiyay askarta inay istaagaan. wuxuu u xaqiijiyey inuu isagu ciqaabi doono carruurtan, uuna diray askartii. intaa kadib wuxuu u dhowaaday Eren, wuxuuna ku canaantay ficiladiisa carruurnimada ah. wuxuu kaloo u sheegay in ciidanku dhowaan bilaabi doonaan safar derbiga dibaddiisa ah, sidaa darteedna Eren uusan u baahnayn inuu naftiisa halis u geliyo. inta ay wada sheekaysanayeen sikadiisa, dhulkariir ayaa goobtii ku dhuftay. dhulkuna wuxuu bilaabay inuu si xoog leh u ruxmo. derbigii ayaa bilaabay isaguna inuu ruxmo. markay taas arkeen, kooxii dib ayay u gurteen. isla markaas waxaa soo muuqday Titan aad u weyn oo ka weyn derbiga laftiisa, wuxuuna bilaabay inuu derbiga laad ku dhufto. askartii ilaalada xadka waxay ahaayeen kuwa aan awood lahayn maadaama hubkooda aan waxba ka qaadi karin makhluuqa weyn. Titankii ayaa ugu dambayntii derbigii jabiyey, kadibna isla markiiba waa la waayey. intaa kadib meeshii oo dhan waxay noqotay mid aamusan, laakiin dhowr Titans oo kale ayaa magaalada soo galay. askartii waxay ku weerareen madaafiic, laakiin dadaalkoodu wuxuu noqday mid aan waxba dhalin maadaama Titansku ay leeyihiin awood ay si dhaqso ah ugu bogsadaan beer gudaheed. Titanskii gaasisnaa waxay bilaabeen inay mid u canaantaan askartii. kadib waxa u dhaqaaqay dhinaca magaalada, waxayna bilaabeen inay burburiyaan guryaha iyagoo qabsanaya oo cunayay dad badan intii ay awoodaan. magaaladu waxay isku beddeshay qas iyo jahawareer, dadkiina waxay bilaabeen inay meel kasta u cararaan. Armin ayaa ku dhex lumay dadkii badnaa, halka saaxiibadiisa u carareen dhinaca kaniisadda magaalada oo markaasba aad u buuxday. isla markaas Mikasa waxay dareentay ilmo yar oo dhulka yaala oo ay dadku ku dhow yihiin inay ku istaagaan. iyadoo aan kaba sii fikirin ayay u carartay inay badbaadiso ilmihii yaraa, laakiin waxay weeday Eren oo ahaa dadkii kaniisadda gudaha ugu jiray. nasiib darro, Titan ayaa u dhowaaday Mikasa. markuu ogaatay inaanay rajo helayna, waxay aqbashay nasiibkeeda. dhanka kale, qarax kale oo weyn ayaa ruxay dadkii kaniisadda ku jiray. markii Eren dibadda eegayna, wuxuu waayey Mikasa iyo Titankii. isagoo cabsanaya ayuu dibadda u soo orday, isagoo raadinaya saaxiibtiis, laakiin wuxuu helay magaaladii oo burbursan. markuu gadaal u soo jeestay, wuxuu arkay Titankii oo burburinayay kaniisaddii oona cunayay qof kasta oo gudaha ku jiray. tani waxay ka dhigtay mid rajo beelay, wuxuuna magaalada dhex lugeeyay isagoo keliya. intaas kadib, filimku wuxuu isku beddelayaa 2 sano kadib. dadkii ka badbaada weerarkii Titansku waxay u guureen degmada gudaha. ciidankuna waxay qorsheeyeen inay dib u qabsadaan degmada dibadda ee ay Titansku ku jiraan. si kastaba ha ahaatee, xaaladdu ma sahlana. kadib markii qof kasta ka tegay degmadii dibadda ee wax soo saarka badnayd, cunto yari ayaa keentay abaaro iyo dhimasho badan. haddii ciidanku si dhaqso ah aysan u qabsan degmadaasna, degmada gudaha oo dhan waxay ku dhex dhiman doonaan toddobaadyo gudahood. jadooda kaliya ee badbaadada waa inay qabsadaan degmada dibadda oo ay hagaajiyaan derbigii jabay, sidoo kalena laayaan Titaniska. muuqaalka xiga, Generaal Kubal ayaa khudbad dhiirigelin u jeedinaya askartiisa. Hanji oo ah qofka u qaabilsan hubka ayaa saaxiibadeed uga warramaysa qalab cusub oo loo sameeyay dhaqdhaqaaq
dhaqdhaqaaqa kuwaas oo ay karaan inay ku duulaan kuna dilaan Titaniska iyadoo sheegtay inay ku habboon yihiin la dagaalanka Titaniska. Si kastaba ha ahaatee, intii lagu jiray bandhigaas, Erin iyo Armin ayaa lagu dhex arkayaa askar, waxaana aynu ogaanaynaa in labada saaxiibada ahi ay ka badbaadeen weerarkii Titaniska, haddana ay ku biireen ciidankaas. Intaas waxaa dheer, Erin wuxuu go'aansaday inuu burburiyo Titaniska maadaama uu rabo inuu aaro jacaylkiisii Mikasa. Askartu waxay qorsheynayeen inay weeraraan degmada dibadda habeenkii. Marka ay Titanisku hurdaan, waxay rabaan inay xidhaan derbiga ay Titanisku ka soo galayaan magaalada si aysan kuwa cusub u soo gelin. Intaas kadib, ay dili karaan Titaniska hadhay, waxayna xoreyn karaan degmada dibadda. Qorsheynta kadib, kooxdu waxay diyaar u tahay howlgalka. Albaabka degmada ayaa la furay, askartiina waxay si qarsoodi ah ku soo galeen baabuurka ciidanka. Isla markaas, kabtanku wuxuu amar ku bixiyay dadkiisa inay istaagaan isagoo dareemaya wax shaki ah. Markay hubiyeen, waxay heleen lo meesha dhex mushaaxaysa. Dhanka kale, haweeney la yidhaahdo Hayana ayaa maqasho oohin ilmo oo ka soo baxaya dhismo burbursan, waxayna si dhaqso u ordaysaa si ay u soo hubito. Erin markay labadoodu meesha gaadheen, dareere biya ayaa ku soo dhacaya madaxa Hayana. Markay kor weegaan, waxay arkayaan Titan yar oo ilmo u eg oo cunaya hilib bi'aadan. Ilmihii Titanka ahaa ayaa dhulka ku soo dhacay, wuxuuna bilaabay inuu si xoog loo ooyo, taasoo ku kasabtay labadoodii inay naxdin darteed u cararaan dibadda. Askartu waxay sidoo kale maqleen sawaxanka, waxayna bilaabeen inay argagaxaan. Inta uu kabtan ku dhiirigelinaya ciidankiisa inay feejignaadaan, ayaa waxa meelaha laagoon ka soo baxday gacan weyn oo qabsatay kabtankii. Titaniskii kale ayaa sidoo kale soo toosay, waxayna bilaabeen inay u soo dhowaadaan askartii. Meel kale, Erin iyo Hayana ayaa u ordayay dhinaca baabuurta ciidanka iyadoo ay eryanayaan qaar ka mid ah Titanisku. Si kastaba ha ahaatee, markay goobtii gaadheen, waxay aad uga xumaadeen inay arkaan General Cooper oo mar hore la baxay baabuurta iyo hubka. Mid ka mid ah baabuurta dhexdeeda, Hans waxay kooxda ka codsataa inay ku kulmaan dhisme laga tegay oo u dhow. Askartii ayaa si dhaqsaa ugu cararay dhismaha, laakiin nasiib darro waxaa hareereeyay Titaniska. Markii rajo kasta ay dhimatay, waxaa si lama filaan ah u soo muuqday nin dilka Titaniska ku takhasusay oo la yidhaahdo Levi. Isagoo isticmaalay xirfadiisa dilka iyo xadhigga lulmaya ee geerka, ayuu dilay Titaniskii isagoo ka dilaya meesha ay ka jilicsan yihiin ee qoorta gadaasheeda. Gabadh kale oo Titaniska dilaya ayaa ku soo biiray, labadooduna muddo gaaban ayay meesha ku nadiifiyeen. Titaniskii dhintay ayaa dhulka ku dhacay, isla markaana wuxuu bixinayaa uumi. Markii Erin uu arkay qofka gabadha ah ee Titaniska dilaysa, wuxuu ogaaday inay tahay Mikasa. Kastaba ha ahaatee, Mikasa gebi ahaanba way iska nintagtay, waxaana u tagtay Levi. Labadoodii ayaa dhismihii u dhaqaaqay, iyadoo askartuna raacayso. Mar dambe, waxaa la ogaanayay in General Cooper uu ahaa kii magacaabay Levi si uu isaga uga caawiyo howlgalka. 2 sano ka hor, Levi ayaa badbaadiyey nolosha Mikasa, wuxuuna baray sida loola dagaalamo Titaniska. Tan iyo markaas, labadoodu waxay dilayeen Titan kasta oo isku dayay inuu soo galo degmada gudaha, maadaama Mikasa ay soo martay xaalad qarka u saarnayd dhimasho. Ma rabto inay xidhiidh la yeelato dadkeedii nolosheedii hore. Dhanka kale, askari ayaa ku eedeeyay Erin inuu isagu soo toosiyey Titaniska, taas daraaddeedna waxay bilaabeen inay dagaalamaan. Mikasa ayaa soo dhex gashay si ay u kala qabato. Levi-na wuxuu wax ka dareemay Erin. Mar dambe, Erin wuxuu helay Mikasa oo garaacaysa biyaano jabtay, wuxuuna isku dayay inuu la sheekaysto. Si kastaba ha ahaatee, Mikasa ma xiisaynin, waxay ka codsatay inuu iska tago. Markii uu Erin ku adkaystay inuu la hadlo, Mikasa waxa uu sheegtay inay isbedeshay markii uu dhintay ilmihii ay ilaalinaysay. Intii ay labadoodu sheekaysanayeen, Levi ayaa soo dhex galay, wuxuuna Mikasa siiyey tufaax. Tani aad ayuu uga xumaaday Erin, wuxuuna u cararay dibadda isagoo xanuun dartiis u qaylinaya. Waqtigaas oo dhan, wuxuu diiradda saaray inuu aaro gabadhii uu jeclaa, laakiin hadda waxay isku bedeshay qof kale oo waa ay ilowday. Isla markaas, Hayana ayaa u soo dhowaatay Erin, wayna la sheekaysataa. Labadooda ayaa ku soo laabtay dhismihii gudihiisa, halkaasoo lamaano kale ay ku sheekaysanayaan. Hayana ayaa murugootay, waxayna xustay in gabadheeda ay kaga timid degmada gudaha. Waxaa isku daday in niyadjabkeeda ku ilowday Erin. Intii ay isku daysay inuu dhawaato Erin, il weyn ayaa daaqada ka soo muuqatay. Nasiib darro, iyadoo aan fursad la siin, Titankii ayaa qabsaday Hayana, wuuna liqay. Dhowr Titans ayaa ku soo dhowaaday dhismaha. Levi, Mikasa iyo askartii kale waxay xidheen qalabkoodii, waxayna la dagaalameen Titaniskii sidii caadada ahayd. Levi iyo Mikasa si fiican ayay ula tacaaleen Titaniska, laakiin kuwa kale ma ayn lahayn nasiib badan maadaama markoodii ugu horreysay ay ahayd. Dhanka kale, General Cooper ayaa amar ku bixiyey qof kasta ilaaliya walxaha qarxa, maadaama ay yihiin hubka ugu fiican ee Titaniska looga takhalusi karo. Dhanka kale, lamaanihii meesha jooga ayaa la weeraray, ninkiina goobta ayuu ku dhintay oo waxaa cunay Titaniskii. Haweenaydiina aad ayay uga xumaatay, iyadoo ku dhaaratay inay u aari doonto ninkeeda. Muuqaalka xiga, nin ayaa gelaya baabuurka ay ku jiraan walxaha qarxa, uuna kaxeeyey baabuurkii. Haweenaydii hadda weydi gacalyaheeda ayaa qorshaysay inay nafteeda u horto, waxayna ku booday baabuurkii saa u kaxaysa walxaha qarxa. Waxay la wareegtay steerinka, waxayna u kaxaysay dhinaca Titankii dilay ninkeeda. Waxay ku dhacday makhluuqaadkii Titaniska, qaraxii ayaana lugaha ka soo gaaray Titaniskii. Nasiib darro, nafhurnimadii waxay noqotay midaan waxba dhalin, maadaama Titanisku ay leeyihiin awoodda regenerationka, taasoo ay lugihiisa dib ugu soo baxayaan mar kale. Hubka keliya ee lagu dhammaystiri karaa Titaniskana
waa in laga weerara meesha ay ka jilcan yihiin ee quurta gadaasheeda ah. dhanka kale Eren ayaa wax walba ka daawanaya dhismaha saqafkiisa isagoo go'aansaday inuu caawiyo kooxdiisa ayuu hawlgalkii bilaabay isagoo isticmaalay xadhig lulmaya wuxuuna weeraray Titaniskii markii hore uu dhibtooday laakiin markii Levi uu hagay wuxuu dilay Titankiisii ugu horreeyay nasiib darro inta uu dagaalku socday wuxuu lumiyay dheelitirka wuxuuna ku dhacay Titanka afkiisa. Titankii ayaa mid ka mid a lugaha Eren ka qaniinay laakiin Eren wuxuu ku guulaystay inuu naftiisa badbaadiyo isagoo u booday saqafka dhismaha. meel kale Titan kale ayaa qabsaday Armin askartii waxay isku dayeen inay badbaadiyaan saaxiibkood iyagoo ku riday dhowr falaalood kana garaacaya lugaha makhluuqaas laakiin dadaalkoodii oo dhan wuxuu noqday mid aan waxba dhalin. markuu taas arkay Eren ayaa u guurguurtay inuu badbaadiyay saaxiibkiis inkastoo uu dhaawac halisa qabo wuxuu ka booday dhismaha darafkiisa wuxuuna ku degay Titanka afkiisii isagoo kala haya. Eren ayaa markaas badbaadiyay saaxiibkiis laakiin nasiib darro wuxuu ku dhacay Titanka afkiisii ilaa uu ka gaadhay Titanka calooshiisa. halkaas wuxuu ku arkay meedo dhowr ah oo ay ka mid tahay Hayana. meel kale inta ay Mikasa iyo askartu ka dagaalamayeen saqafka dhismaha Armin ayaa halkaas yimid wuxuuna u sheegay geerida Eren inkastoo Mikasa ay isku dayday inay qariso dareenkeeda haddana waxaa caddayd inay aad uga murugaysan tahay geerida ku timid Eren. iyadoo waqti iska lumin ayay weerar dhimashaa ku qaaday Titaniskii mid ayayna u laysay. si kastaba ha ahaatee shidaalkii ayaa ka dhammaaday dhulka ayayna ku dhacday. isla markaas Titankii liqay Eren ayaa u dhowaaday isla markuu saa ugu soo dhowaadayna dhaqaaq ayuu samaynayaa waxaa si lama filaan afkiisa uga soo baxaysa gacan kadibna jidhkiisa oo dhan ayaa qarxaya waxaana gudaha ka soo baxay Titan kale. waxaa la yaab leh Titankan oo ah kan ugu xooga badan dhammaantood ayaa bilaabay inuu la dagaalamo kuwii la midka ahaa. Mikasa iyo askartii ayaa la yaabay markii ay ogaadeen in Titankaasi uusan qof kale ahayn ee uu yahay saaxiibkood Eren. kadib markii uu baabiyey dhammaan Titaniskii Eren wuxuu u soo jeestay dhinaca bini'aadanka waxay u muuqataa inuu ilaaway saaxiibadiis isaguna wuxuu isku bedelay makhluuq naxariis daran. markii ay arkeen isagoo si xun ugu soo dhowaanaya askartii oo dhan way carareen marka laga reebo Mikasa waxay ku dhawaaqday magaciisa laakiin Titankii ma dareemin wuxuu ku qabsaday iyada. inta uu eegayeyna Erenkii dhabtaha ayaa soo miirsaday. tani waxay keentay inuu dhulka ku dhaco oo uu bilaabay inuu umibaxo sida Titaniska oo kale laakiin ka hor inta uusan uumi bixin Mikasa ayaa u carartay dhankiisa waxayna jartay meeshii jilicsanayd. waxaa la yaab leh waxaa soo baxay Erenkii dhabta ahaa oo bini'aadam ah kaasoo hadda lugtiisii dib u soo baxday sababtuna tahay awoodda bogsashada ee Titaniska. filimkuna wuxuu ku dhammaanayaa iyadoo Eren uu si tartiiba miyirkiisa ugu soo laabanayo. haddii aad channelka cusubtay fadlan subscribe saar sina sheer garee mahadsanid.